بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سو dhawaada dhamaantiin waa casharaantii aanu ku qaadanay higaada luqada carabiga. Hore waxaan u soo qaadanay xarafka luqada carabiga kamid ah iyo goonidii markuu yahay magaciisa iyo qaabka loo aqriyo. Waxa sidoo kale hore u soo qaadanay marka xuruufta la isku xidhxidho ama isku yimaadiin iyo qaab qoraalka uu sida uu noqonayo. Waxa sidoo kale hore u soo qaadanay xarakooyinka tii horeysay oo ah kordhiga marka xarafka la siiyo iyo sida uu akhrismayo. waxaanu caawa halkan ka guda galaynaa xarakada labaad ee xarafku uu qaadan karo oo loo yaqaano hoos dhig ama kasra la yiraahdo afka carabiga. kasradaas markuu xarafku qaato ama hoos dhiga iyo sida loo aqriyo ayaynu caawa halkan ka guda galaynaa. marka waxaanu qaadanaa al-xuruuf al-maksuura, xuruufta hoos dhigan. waxaanu horreysiinaynaa caawa xarfun waahidun maksuur, xaraf kaliya hoos dhigan. waay sidii aan fatxadaba ama kordhigiiba xarafka kaliya aan ugu horreysiinay ayaan hoos dhigan xaraf kaliya hoos dhigan qaabka loo aqriyo ugu horreysiinay. way halka waxa kaaga muuqda xuruuftii aad taqaanay ee xuruuful hijaa, xuruufta higaada, xuruufta luqada carabiga ayaa bartan kaaga muuqda. markaynu soo maraynay wixii loo yaqaanay fatxada ama kordhiga, waxaanu tilmaanay alifta oo ah xarafka u horeeya xuruufta carabiyadu inaanu wax xaraka qaadan karin. marka kordhigaanu soo marnay uu diidanaa, caawaynu hoos dhig maraynana uu diidan yahay. marka wax xaraka ama qaadan karo insha Allah sababtana dib baad ka ogaan doontaa baan kugu hor. marka alifta halka ay dhig. way waxaanu halka ka guda galaynaa xarafka labaad oo ah xarful ba. magaciisa saasa lagu dhawaaqaa ba. hadii la kor dhigan waxaan ku oran jiray soo gaabiyo waxa tiraahdaa ba. maanta marka la hoos dhigan waxa leeyahay bi. fiiri horta xarakada lagu sheegayo hoos dhigu wax weyn maaha oo yani aad u sii culus maaha. waa xarakadii dusha taalay saw yara jiiftay aliftii halka aliftii yaro jiiftay iyo qaab kitaabeen oran jirnay. waayahay oo dushay taalay markii hore. iminkana waxa la dhigayaa hoosta munaasabana kulli ka yara dhaxayso oo yani waxa weeyaan kordhiga waxa dusha loo dhigay fatxa xarafku afku yara kala furaya ba ba afka kaana ma dibnaha la kala qaadayo kale ayay u dhigan tahay. laakiin marka waxa weeyaan hoos dhigay noqoto si wax dibintii hoos yara dhacayso kale xataa carabiga kasra loo bixiyo. kasradu waa jabin moogta si wax dibintii hoos loo yara jabin. bi bi balada fiiri adigu ba afku waa kala furan yahay. bi waka iminkana bi daasa loogu dhawaaqaya. marka ay la soco kelmad kasta marka noocaas lagu dhawaaqaysa bi haday taatimaado maxaa oran ti haday taatimaado si waa ila aakhiriha halka kaga hayado. bal waa tan bataado aynu u gudubno. marka la kordhigay waxay tahay ta. hadii marka hoos dhigaynana ti. saadu hadii la kordhigay maxay ahayd adal lagu weydiinaya. sa waxa la yiraahdaa arday waxa u daran waxaanu soo marnay marka la yiraahdo waayo isaga laga rabaa. macallinna waxa u daran baa waxa soo socdo garaysa waayo inuu sharaxa laga doonayo. way sa baa la oranay. hadaynu hoos dhignana si. fiiri si baynu leenahay. jiimka hadaynu ka dhigna maxaa la dhihi jiray ja. hadaynu maanta hoos dhignana ji. way hada marka la kordhigo maxaa la dhihi jiray ha. hadii la hoos dhigana hi. kha hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray kha. iminkana khi. markaysa khi. daalka hadii la kordhigo maxaa la oran jiray da. caawana di. hoos dhig waa di. zaalka hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray za. iminkana zi. ilahaysa. raada hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray ra. ra gaabi waliba ra ra. iminkana ri balle ri oo waliba qabdho qeyguna yar yaraanaya. insha Allah tajwiidkeenu ku baran doonaa. hadii raada ay kordhiganto waa la yar weyneenayaa ra wala oranaya. hadda iminka hoos dhigan tahay ri wala yareyn oo ri lama oranaye ri bal iska leey ri Soomaaliga weeyaan ri. way zaada marka la kordhigno maxaa leenahay za. hadana hoos dhignana zi. siinka hadana kordhigno maxaa leenahay sa baynu oran jirnay. iminkana si baynu leenahay. war shin hadana kordhigno maxaa la dhihi jiray sha. sha baa la oran jiray. iminkana maxaa leenahay shi. shi baynu leenahay. saadka hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray so. iminkana si baynu leenahay. daadka hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray da. iminkana di. alfiiraad di. taada hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray ta. iminkana ti. waka ti ti. zaad hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray za. iminkana zi. caynka hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray a. iminkana ci. ilaaha غينك hadii la kordhigo maxaa la dhihi jiray gha. iminkana ghi. haye faada maxaa la oran jiray fa baa la kordhigay. marka la hoos dhigayna fi. qaafka hadii la kordhigo maxaa la oran jiray qa. iminkana qi. haysa kaafka hadii la kordhigo ka. iminkana ki. haye laamka hadii la kordhigo maxaa la oran jiray la.
imikana li miimka hadii la kordhigayo ma imikana mi nuunka hadii la kordhigayo waxa la oran jiray na imika marka la hoos dhigayana ni hada hadii la kordhigayo ha imika hadii la hoos dhigayana hi waawga hadii la kordhigayo waxa la oran jiray wa imika hadii la hoos dhigayana wi yada hadii la kordhigayo waxa la oran jiray ya hadii imika la hoos dhigayana yi hamzada waxaan oran jirnay marka la kordhigayo mar alif la dul dhigi karaa saas oo kale imikana aliftii baa hoos la dhigaya fiiri aad iskaga fiiri halka waxay taalaa dushay taalaa marka la kordhigayo madaxii yar ay caynku hamzadu ay iska lahaan jirtay fiiri soo dhaweeyo madaxa yar dushu yaala haddaynu doonayno inuu hoos dhigno hoostaan dhigana baleegada fiiri madaxii yar aan hoostaynu geynina oo xarakadan hoosta la dhigay buu raacaya iska fiiri madaxa yar inta dusha dhigto hoos dhigina hoosta ha dhigin soo raaci isagana madaxii yar aan hoosta la dhigay markaas ay noqonaysaa ayaa la oranaya hadii la doonana waxaan oran jirnay waawga la dul dhigi karaa marka ay tahay maxay marka ay kordhiga tahay oo waxa la oranayaa iyadoo wawda dul taalo waxa loo danleeyana maxay tahay hamzadeeda dusha taala laakiin haday hoos dhiganto waaw ma dul dhigi karto arintaana mar labaad ku baraarug markii hore hadda waxaan baraarujiyay haddaad hoos dhigto alif ay meesha yani waxa weeyaan la dul dhigi jiray alifta waad hoos dhigaysaa maanta haye markay wawda laakiin dul taalay wow maba dul dhigmi karto markay hoos dhigan tahay oo marka waa arinta labaad ee baraarujiyay weeyaan oo waxa la dul dhigayaa qaabkii yaad ma la dul dhigayaa marka ay noqonaysaa iyadoo yaad dul taalo bay noqonaysaa way marka waxaan sameyn jirnay iyadoo yaad dul taalana waan kor dhigi jirno baa loogu dhawaaqi jiray way isla haday yani waxa weeyaan yaadiin hoos taalana bay noqonaysaa marka halkan saddexda arrimood ee baraarujiyay waxay tahay koow haday alif dul taalo ma dul oolayse haday yani waxa weeyaan alif la xidhiidho waxa weeyaan hamzadi ma dul oolayse hoosta la dhigaya maadaama ay hoos dhiganta way waawna ma dul dhigmi kartay ya bay hoos dhigmaysaa bay dul dhigmaysaa way marka yaadana de waa tanbo waa mar labaad baan soo celiyay si aan ku tusiyo labadii jeer marna waawda ay dul taalay marna yaada ay dul taalay haday hoos dhiganto labada jeerba maxay dul oolaysaa ya bay dul oolaysaa oo iyadoo hoos dhigan waaw ma dul dhigmi karto mar walba waxa la akhriyo loo danleeyahay waa hamzada uno weeyaan saddexdo way tamam halka markaynu joogno arinta labaad ee baraarujinay waxay tahay markaynu kor dhigaynay xuruuftan waxaan oran jirnay isku dheerinin oo ba ta sa ja oo ha oranin ba ta sa ja ha oranin ba ta sa sida dhameyn oran jirnay maantana waa sidoo oo ha oranin b t c ha oranin isku jiidi waa khatar soo gaagaabi waxa oranaysaa b t c g hi khi di zi ri zi si shi si di ti zi i ri fi qi ki li mi ni wi mehi wi yi ana lafteeda mudan leeyahay inaan yari jiiday miya kasi gaabi hadda doonto waxa tira bi ti si ji xarakadu ma buuxinaya mooyaan yani waxa weeyaan inaan jiido ma rabo xi khi di zi ri zi si shi si di ti zi i ri fi qi ki li mi ni hi wi yi i way saddexdaba iidin baa loo dan leeyahay way caawa halka darsiga kuma joogay waxaan u gudbaynaa sabradan yar baa inoo diyaariyay qurux badan la hadda soo dhawaada mar kale wayahay waxaan u gudbaynaa al-huruf al-maqsuura baynu ku jirnaaye waxaan u gudbaynaa xarfun waahidun maksuur xaraf kaliya oo hoos dhigan hase ahaatee la jira maca ahruf maftuuxa ilaan xuruf kor dhigan baad haro soo qaadatay caawa xaraf hoos dhigan oo kaliya ma qaadanaysid waxaan samaynaynaa xarafkii kaliya oo hoos dhigan ayaa waxaan ku dhex daraynaa xuruf iyadu kor dhigan marka hada xurufta kor dhigan horaad soo qaadatay kaliya waxa kugu cusub wuxuu noqonayaa xarafkan kaliya hoos dhigan marka dhexdaynu u gelinayna insha Allah way bal kelmadda koobaad soo qabto kelmadda koobaad waa ka waxay ka kooban tahay lam iyo ba iyo sa saddex xaraf ka kooban tahay sida ugu garo horta lamkaas waa kor dhigan yahay ba'dan dhexda ku jirta hoos dhigan oo ay ku caseeyay yani waxa weeyaan sa'dan oo waxa weeyaan marka u dambaysaana way kor dhigan tahay marka lamkan kor dhigan la oranayo sa'dan kor dhigan sa la oranayo de horaad soo qaadato caawan waxaad baratay bacdan hoos dhigan bi la oranayo bi hoos dhiga bi in la oranayo intaas caawana qaadato
isku dar saadaba saddexda adoo ku shaqeynaya qaacidadeena yahay ha kala googeyna isku darahay oo ha odhan la bi sa sida ha odhan isku dar waxa tira la bi labi isku dar sideedna isku dar jirnay labi sa ka dhanta la bi labi sa labisa okay wala daba galay hadaba mar labaad qaacidada sharax xarafka koobaad akhri haye oo xarakadiisa ku akhriday waa ha xarafka labaad ee taada xarakadiisa ku akhri waa ta sooma maya waa hoos dhig sheekhe waa ti isku dar hadaba hati miimka kordhig ma hati ma way waxa dana noo yimid tan waa ba si ek xarafka dhexda ku jira ku casaynaya waxana ku wada alifat hada wadiga arkaya waa ba hoos dhigan markii hore imkana waa ta hoos dhigan markana dhaweydna imkana waa sa hoos dhigan way baadan kordhigan hore soo qaad ba haysaada hoos dhigan maxaa la oranaya soo saama aran ciibeyniyo waa si ek waa hoos dhigan layni ba si basi ra basi ra way وانا خليه هذا بس أنا مقال كل دير يعني ولا طبق عليا إن شاء الله قاعدة سيدا وفهم حرف كهوس دقنو كورهاي إن لو رنا يو ثي هذا هوس دقنو دبين تبغى هوس لو جينية ثي بي قي تي جي حي دي في كل بحرف ويا دي واي كوا كرد دقنا ده هراد يسوي دركتين ما وقت بعض جبهة أنت واي قاعدة سكجا وضي هذا و جي وجي لا وجي لا واي لا حي لحي قا لحي قا باخي بخي لا بخي لا قدي قدي ما قدي ما حذي حذي را حذي را شري شري با شري با حزي حزي نا حزي نا نسي نسي يا نسي يا نشي نشي طا نشي طا حبيت دحدون با هوس دغنو كلي واي نصي نصي با نصي با واي خاضي را خاضي را واحد دنيا اللي بدنا نحط اسكو ضرب خاضي خاضي را خاضي را فاطي فاطي نا فاطي نا بذي بذي را بذي را ذاعي ذاعي را ذاعي را وغي وغي را وغي را نفي نفي دا نفي دا فقي فقي ها فقي ها راكي راكي با راكي با علي علي ما علي ما أمي أمي نا أمي نا أني أني سا أني سا بهي بهي جا بهي جا قوي قوي يا قوي يا يا إي سا يا إي سا واي برتا waxay nagu dhamaaday waxa weeyaan حرف واحد المكسور حرف كليه هوس دغن او مع حرف المفتوحه حروف كور دغن لا جيره marka waxaan ka soo bilownay alif ilaa iyo hamzadii u dambeysay ka soo gaarnay soo fiiri hadda xarafka anigu hadda dhexda ayaan galiyay marka nimka akhriyay horta waxa laga rabaa marka koobaad inaad sidaa u kala jarto oo nasi ba atraado waa qaacidada aynu ku aqrino yani waxa weeyaan aynu ku tala galnay laakiin marka u dambaysa yani waa inaad ku celcelisaa 3 jeer sidii aanu samayn jirnay marka nasiba natiijada u dambaysa loo cararayo inta waa nasiba in la yiraahdo kelmadda oo imika yani caadi ahaan waxa la rabaa inaad tiraahdo nasiba khadira fatina dadira dha'ira waghira nafida faqiha waxa weeyaan waxa muhiimka la doonayo waa sida marka qaacidadan waxay anfacaysaa qofka bilowga sida imika waxa weeyaan halkan kasrada ka maraya 10 dhanba marka adigu marka ugu horeysay sida yani u barato kadib bilowgu waa qofka yani waa wacda u horeysa 10 marka ku cusub yahay laakiin marka aad sida ku wada akhrido ilaa halkan u dambaysa aad soo gaadho haddii marka damaanad ku akhrin karto nasiba khadira fatina dadira warku waa sida ku socda jazakallahu khairan
waxaan u gudbaynaa tadriibaadkii sidii caadadeenoo ahayd tadriibaat الثلاث banu dhihi jirnay tadriibaadka saddexda tadriibka qaybta koobaad waxay noqonaysaa waxaynu cashirkeena caawa ku qaadanay yani waxa weeyaan iyaga oo ay keli yihiin kelmadda la hoos dhigayo iyo iyada oo kelmadda dhexda ay ugu jiraan labada kalena ay kor dhigan yihiin iminkana waxaan keenayaa soo fiiri kelmadahan keenayo dhan soo fiiri kelmadahan keenayo dhan soo fiiri kelmadahan keenayo dhan soo fiiri si fiican u fiiri waxaad fiirisaa haddaba fiirada lagaa doonaya waxay tahay waxaad eegtaa xarafkii hoos dhignaa waana ku caseeyay halkuu kaga jira kelmadda bilowgeeda ku jira markii horena halkuu ku jiray kelmadda dhexdeeda ku jiray waxaan adigoo akhri haddaba marka xarafka hoos dhigan sida taa koobaad imika haddaan ku akhriyo b labadana horaad soo qaata da a waa laba kor dhigan isku dar haddaba b da b da a b da a ti ra tira ta tira ta ثقة ثقة تا ثقة تا saddexdaasaan ku akhri inta kalena aday ku taalaa laga rabo way marka kelmadda bilowgeedaynu ridnay mar kale waxaanu ridaynaa kelmadda dhexdeeda qaybta labaad tadriibaadka qaybta labaad kelmadda dhexdeeda waxaan doonayaa markii hore inuu ridnay kelmadda aakhirkeeda ayaynu ridaynaa fiiri haddaba soo wada dhiga iyagana kelmadda aakhirkeeda fiiri halka yaalaan xarafkii hoos dhignaa meeshuu yaalla fiiri xarafkii hoos dhignaa meeshuu yaalla fiiri kelmadda aakhirkeedu yaalla way iyadana aan ku akhriyo labadan waa sidii kor dhignaa sa ba saba b okay tan dambaysi way saba b waa tan taadina ba da bada ti bada ti ilaa kelmadda u dambaysa ka gaar tadriibka qaybta saddexaad waxay noqonaysaa qaybta aynu oran jirnay uktub ma yumla alayka waxa lagu yeernay qor wuxuu kugu yeernay marka hore dariiqatan cashwaiya qaab isku dhex daasan oo kalimaadkii caawa aynu qaadanay ayuu kulba mid doona ku soo qabanaya qofkaasi qaybta labaadna wuxuu kugu yeernay dariiqatan murattaba qaab tartiibsan ayuu kugu yeernaya oo yani kalimaadkii caawa aynu qaadanay tii u dambeysay tii u horeysay ilaa tii u dambeysay ayuu si toos ah kugu yeernaya waxaanu oran jirnay haddaad weydo qof noocan ku caawiya waxa kugu filan labada qaybood ee hore oo kaafici doona waxaan rajaynayaa inaad darsigan ka wada faa'iidaysateen gaarsiiya cid kastoo isleedihiin waa anfacaya. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.